soo dhawow daawade. yuhuuddu waa duul nasakhan oo kitaabkooda hadba u dooriya sida ay dan moodaan. noloshooda intoodii badnayd waxa ay ku sugnaayeen silac iyo dhib. waxa ay aaminsanaayeen inuu u soo bixi doono masiixii badbaadin lahaa. waa sida ay ka rumaysan yihiine waa boqor midayn doona una dhisi doona boqortooyo caalamka ka talisa, taas oo ay bulshooyinka kale ku gumaysan doonaan. markasta oo uu waayuhu ku adkaado waxa ay wadaadadoodu amri jireen in ay soomaan oo ay toobad keenaan, iyaga oo odhanaya marka aynu ilaahay raali gelinno ayuu masiixu soo baxayaa. waxaana jiray sanad uu wadaadkoodii weynaa ku dhaartay haddii la wada toobad keeno inuu masiixu imanayo. dadkii oo dhammina cibaado iyo toobad ayay u jeesteen. toobadkaankii badnaa awgeedna waxaa sanadkaa loo bixiyey sanadkii toobada. markiise uu masiixu soo bixi waayey ayay qaar badani niyad jabeen oo ay ka gaaloobeen. filashadaa badani waxa ay sababtay inay taariikhda yuhuudda soo maraan rag badan oo sheegtay in ay yihiin masiixii la sugayey. sheekada aynu u soconno inta aynaan dhex muquuranna, bal tusaalayaal kooban aynu ka soo qaadanno qaar ka mid ah raggaa sheegtay in ay yihiin masiixii la sugayey si aynu waxoogaa faham ah uga sii qaadanno. sanadkii 44 ee miilaadiga nin suyuudos la odhan jiray oo yuhuudi ahaa ayaa sheegay inuu yahay masiixii ay sugayeen. waxaana uu nebinimadiisa ku qanciyey dad fara badan. sidoo kalena waxa uu ka dhaadhiciyey inuu mucjisooyin badan leeyahay, sida in uu awoodo tabtii nebi muuse oo kale badda in wadooyin looga jeexo. ninkani yuhuuddii rumaysneed waxa uu ka dhaadhiciyey in ay la qaxaan, isaga oo u ballan qaaday inuu karaamooyinkiisa ku badbaadin doono. kadibna way yeeleen oo sidii ay u soo ordayeen ayay ku soo afkoomeen webigii urdun. waxaase uu ku fashilmay inuu badda wadooyin uga jeexo. sidaa awgeedna waxaa soo gaadhay ciidankii roomaanka oo inta ay taageerayaashiisii in badan oo ka mid ah dileen ayay intii hadhayna maxaabiis ahaan u soo kaxeeyeen. isagiina kuwa lasoo qabqabtay ayaa uu ka mid ahaa. markii dambese inta qudus la keenay ayay gowraceen. qarnigii 5aad ee miilaadiga waxaa yuhuuddii ku dhex faaftay faham ahaa in duruufaha haysta ee ay ka mid yihiin kala daadsanaanta iyo qaxoontigooda meel kasta wadhani aanay ku jirin muddo ka badan 400 sano. wakhtigan oo la mid ahaa xilligii ay masar ku dhibanaayeen ee muuse ka soo badbaadiyey. waxaana ay ku doodi jireen inuu si dhaqso ah u soo bixi doono muusihii badbaadin lahaa, maadaama oo 400 sano laga joogo xilligii ay ka soo qaxeen baytalmaqdes. sanadkii 448 ee miilaadiga ayaa jasiiradda Crete waxaa ka soo baxay nin sheegtay inuu yahay muuse oo eebba u soo diray si uu u badbaadiyo yuhuudda. waxaana uu u safri jiray magaalooyinka jasiiradda ku yaala isaga oo dadka nebadnimadiisa gaadhsiinaya. taasina waxay u horseeday inuu helo dad badan oo rumeeyey. bulshada intoodii badnayd shaqooyinkoodii way ka soo tageen kadib markii uu u ballan qaaday inuu badda u kala jeexayo, dhabbooyinna uga samaynayo si ay Falastiin u aadaan. markii ay maqleen warkiisii ee inta ay soo raaceen ay baddii dul yimaadeen ayaa uu ku amray in ay dhex galaan oo ay dhex socdaan. iyagiina sidii ayay yeeleen. nasiib darrada dhacday ayaa ahayd in aanay cidina baddii wadooyin uga samayn. sidaas ayay dad aan tiro yarayni ku qarqoomeen oo ay ku dhinteen. intoodii badnaydna kalluumaysatadii aakaa ka dhoweyn ayaa badbaadisay. waxaana la sheegaa muusahaasi inuu halkaas taariikhda kaga lumay meel dambe oo uu ka luga taagtay ama uu marayna aan la arag. sidoo kalena dadkii la badbaadiyey intoodii badnayd waxa ay qaateen diintii kiristaanka. qarnigii 12aad ee miilaadiga waxaa faas ka soo baxay wadaad sheegtay inuu yahay masiixii. waxaa la sheegaa hore inuu u ahaa nin karaamooyin leh. warar badan oo uu aayatiinka ka sheegayna la arkay. karaamooyinkaas oo sabab u ahaa in ay bulsho fara badani rumeeyeen markii uu sheegtay inuu yahay masiix. waxa uu yuhuuddii uga warramay in habeen cayiman oo uu markaas u tilmaamay uu samayn doono mucjisooyin weyn. waxaana uu cid kasta oo rumaysay ku amray in ay hantidooda oo dhan qiimo jaban si ay hamigooda u rumeeyaan. waxaana uu u ballan qaaday in ay haddii sidaa ay yeelaan ay barwaaqa soora noqon doonaan. yuhuuddii sidii ayay yeeleen. dhammaan alaabtii ayay iibiyeen. waxaase la gaadhay habeenkii ay ballantu ahayd. ayaan darase wax mucjiso ahi ma aysan dhicin. kadibna waxaa soo food saartay murugo iyo qoomamo, iyaga oo si fudud u noqday dad sabool ah. isagiina waa uu firdhaday oo waxa uu u rooray Falastiin, halkaas oo uu aakhirkiina ku allaystay. isla qarnigii 12aad daa'uud wadaad la yidhaahdo oo ciraaq ku dhashay ayaa sheegtay inuu yahay masiixii la sugayey. waxa uu ku dooday in loo soo diray badbaadinta yuhuudda iyo sidii uu dhammaantood Falastiin isugu geyn lahaa.
durtaba shaxshax ayaa uu muujiyey oo waxa uu isku dubaraday ciidan ballaadhan saa waxaba u suurto gashay inuu markiisii ugu horreysay qabsaday qalcad muhiim ahayd waxaana uu ku baalaxoofteyn jiray inuu dowladda islaamka burburin doono waxaa la sheegay inuu farriin usoo diray yuhuuddii baqdaad ku nooleed nuxurka farriintaasina ahayd in habeen uu markaas u cayimay ay yuhuuddu wada fuulaan guryahooda dushooda yacni saqafka sare ee aqalkooda isagoo u ballan qaaday in ay malaa'igi u imaan doonto oo ay u qaadi doonto falastiin si cajiib ah ayay u soo dhoweeyeen yuhuuddii habeenkii laisla ogaa markii uu yimina waxa uu qof walba fuulay aqalkiisa dushiisa laakiin arrinta dhacday ayaa ahayd in aanay malaa'igtii u iman waagiina uu baryey iyaga oo giddi leylkii oo dhan saarnaa guryaha dushooda waxaana ay dhacdadani noqotay mid ay ku qoslaan beryo dhanna ay kaga maadsadaan reer baqdaad kadib markay arkeen ceebta ku dhacday iyo sida foosha xun ee ay uga soo daadegayaan guryaha dushooda ninkaasna markiiba waa la dilay taarikhyahanada qaar ayaa sheegay shirqoolkii lagu khaarijiyey khaliifkii markaa muslimiinta u talinayay inuu ka dambeeyey halka qaar kalena ay sheegaan in uu sodogii dilay sida oo kalena isla qarnigii 12aad ee miilaadiga nin ka mid ahaa yuhuuddii yeman deganeed ayaa sheegay inuu yahay masiixii la wada sugayay waxyaabaha uu ninkani taageerayaashiisii u jideeyey waxaa ka mid ahaa in ay tijaarta iyo maalqabeennadu dhammaan hantidooda ku wareejiyaan dadka saboolka ah si ay iyaguna markooda maalqabeenno u noqdaan muddo marka ay hantidaa ku raaxaystaanna dib loogu celiyo tujaartii hore oo iyaguna wakhti sabool yaraan noqday waxaana uu ku doodayay in ay bulshadu cadaalad hesho oo marba lacagta iyo dhaqaaluhu qola ay haysato qolada kalena ay si kumeel gaadha sabool usii ahaadaan arrintii waxaa maqlay badhasaabkii muslimka ahaa ee halkaas ka talinayay kadibna waxa uu soo qabtay ninkii waxaana uu weydiiyey sababta ku kaliiftay falalkan uu ku kacayo nebi sheegtihii waxa uu isku difaacay keliya in uu fulinayo amar uu ilaahay siiyey waxaana uu badhasaabkii ku yidhi bal caddayn u keen in aad tahay nebi isagiina waxa uu ku yidhi igowraca oo kurkayga jara waxaad i arki doontaan aniga oo dib u noolaanaya mas-uulkii muslimka ahaa oo yaaban ayaa ku yidhi waa si wanaagsan haddaad dib u soo noolaatid aniga ayaa noqon doonaa qofka ugu horreeya ee ku rumeeya waxaana la amray in la birayo nasiib darrase wax mucjiso ahi kama aysan muuqan sidii ayuuna warkiisii ku gebagaboobay malaha intaas ayaa inagaga filan tusaalayaasha ku saabsan sida ay u sugayaan masiixa iyo xasuusnow daawade shuruudaha ku xidhan in masiixa la helaa waa laba taas oo ah yuhuuddu in ay wada toobad keenaan oo ay noqdaan dad wada wanaagsan oo ilaahay ka cabsada amaba in ay dambaabaan oo ay wada noqdaan dad ehlu macaasi ah tusaalayaasha aynu soo qaadanayna waxa ay u badan yihiin kuwa u doodi jiray xagga togan bulshadana ku waanin jiray in ay wada toobad keento laakiin aynu eegno qoladan ku doodaysa in la wada dambaabo si uu masiixu u soo baxo